بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبنا عرفاية kusoo dhawaada cashirkii sideedaad ee MS Word. Cashirkeena sideedaad waxaan ku baran doonaa tables. Kow waxaan ku bilaabaynaa insert table. Qaabka table loo soo geliyaa. Markaan table soo gelino waxaan tegaynaa insert. Kadib waxaan leenahay table. Table laba qaab aad soo geli kartaa. Kow waxaad samayn kartaa table intaad rabto sida aad dooran kartaa. Ama sidoo kale waxaad samayn kartaa insert intaad tagto waxaad dooran kartaa insert table. Then halkan waxaad gelinaysaa number of columns and number of rows. Number of columns waa 5, number of rows na 5 aan ka dhigno. Kadib okay aan dhahno. Waa table-kaas ayaa noo soo galay. Out insert table waa aragna laba qaab ayaa table loo soo geliyaa. Waxaan ku xijinaynaa table style. Table style qaybtan ayaa la dhahaa table style. Halkan markaa furto noocyadan ayuu kala leeyahay table style badan ayuu leeyahay. Nooca doontid ayaad isticmaali kartaa. Waxaa ku xiga table style option oo option inaad isticmaasho qasab maahan. Waxa ugu horeeya header row waa qaybta kore. Tiga saar haddii aan ka qaado qaybta kore waa waabinaya. Total row waa qaybta hoose. Haddii tiga aan saaro uu kusoo daraya haddaan qaadana uu waabinaya. Banded row first column ugu horeeya ayuu wuxuu ka bixinayaa colorka. Last column wuxuu ku darayaa colorka. Banded uu kala qaybinaya macnaha qayb uu color uu sameynaya halka qaybtiisa kala ay ka dhigaya. Marka table style iyo table style option labadaba waan aragnay. Good. Insert row and column. Qaabka row ama column waa u soo dari kartaa. Column waxaa la qaybtan taagan, row waxaa la qaybtan jiifta ayaa la dhahaa. Sidee marka row u soo dari kartaa, column u soo dari kartaa. Waxaad tegaysaa ilaanka meesha ka bilaabmayo plus aad ku dhufanaysaa. Sidaan hadda waan ku daray row ayaa ku daray. Column markaan ku darayna markaan tegayaa sidoo kale plus ayaan taabanaya. Qaab kale jirta oo loogu daro layout ayaa tegaysaa. Kadib waxaan leedahay insert above. Insert above marka row ayuu ku soo dari doonaa. Insert below sidoo kale row ayuu ku dari doonaa. Insert left column ayuu ku dari doonaa. Insert right na column ayuu ku dari doonaa. Kudurasada ayaan dhahay halkii aan kula waana. Okay. Sida row loogu soo daro iyo sida column loogu soo daro waan aragnay. Delete rows, columns and table. Qaabka loo delete gareeyaa. Waxaad tegaysaa layout. Kadib waa kana delete halkaan tegaysaa. Delete cell ugu horeeya cell maxaa la qayb kasto waa cell. Halkaan waa cell, midkaan waa cell, kan waa cell. Qaabka loo delete gareeyaa marka. Delete marka tagto cell, delete cell ku dhufanaysaa. Marka wuxuu ku leeyahay delete cells left. Qaybta bidix ka delete gareey. Okay aan leeyahay. Sida u jeedo qaybta bidix ayaa laga delete gareey. Control Z ayaan dhahay halkii ku soo laabanaya. Okay. Column sidee loo delete gareeyaa. Delete column aad ku dhufanaysaa. Waa ka dhanka midig ayuu ka saaray. Control Z ayaan dhahay oo ku soo celinaya. Okay, marka la delete ku laabo delete rows qaybta hoose ayuu row ka delete gareey. Control Z delete table run bixin kartaa. Waa ka Control Z ayaan ka soo celinaya. qaabka loo delete gareeyana waa aragnay. Okay. waxaan u xigaa resize. Qaabka marka loo bedelaa resize loogu sameeyaa loogu daraa cabirka. Layout aan leenahay. Kadib halkan high iyo width qoonta isticmaalaysaa. waa ziyaadin kartaa waa ka waan nuqsaamin kartaa. qaabkaas aad isticmaalaysaa. haddii marka table-ka uu ka sida camal uu ka noqdo aad rabto inaad hagaajiso waxaad isticmaali kartaa distribute row iyo distribute column. marka wuxuu marka sida u wanaagsan oo u qurux badan ayuu ku sameeyaa table-kaaga haddii distribute row iyo distribute column aad isticmaasho. Okay. waxaan u xigaa split and merge cells. Split and merge cells waxaa loola jeedaa split waa in la qaybiyo, merge cellsna waa in la tirtiro cellska. Tusaale ahaan qaybtan dambe ayaan tiri rabaa waan dooranayaa. Kadib layout ayaan joogaa. Then waxaan ku dhufanayaa merge cells. waa ka qaybtan waa la tirtiray oo cellska waa laga tirtiray. Control Z ka soo celin karaa. Okay. Split waxaa loola jeedaa qaybiyo table-ka qaybana tusaale ahaan halkaan ku dhufanayaa. kadib waxaan leeyahay split table-ka laba ayaan qaybi. Control Z aan raacaya. Cell-kana waan qaybin karaa. Layout ayaan tagayaa. kadib waxaan leeyahay split cell. wuxuu weydiinayaa meeqa qayb rabtaa oo qaybsan 2 iyo 2.
laba halkan ka dhiganaya kadib okay aan leeyahay waa kan laba ayaa lagu qaybiyey qaabkaas ayaa loo isticmaalaa split iyo merge cell okay alignment tusaalahan halkan waxaan qori doonaa magaca halkan aan qoraya alignment saa marka u tusaaleeyo magacaas camal aan qoray kadib alignment waa qaybtan haddii halkan aan ku dhufto qaybta ayuu soo soconayaa sidoo kale alignment ayaa la dhahaa haddii meesha rabta eegin centerka geen kartaa qaybta soo wadi kartaa haddii space fiican uu leeyahay wuu ku wadaa qaybta alignment ayaa loo isticmaalaa alignment way okay waxaa kaloo jira text direction waxa la waa ka text direction noocaas ayaa loo isticmaalaa oo marka inuu ku sameeyo text direction halkan waxaa noogu jiro outfit saddex qaybood waa content waa qoraalka in outfit loo sameeyo sidaad aragto table dhan kaliya inta qoraalka ku jirto ayuu outfit ka dhigay inta kale isku keenay outfit window waa dhihi kartaa marka in window dhan uu markaa u fit gareeyo fix column and width haddii aad dhahdidna inuu waxba iska bedelan laga yaabaa laakiin waxaad ka isticmaalaysaa split row and column ayaa ka isticmaalaysaa waa ka marka sida ugu wanaagsan ay noqonayaan oo columnkaaga iyo markaa cellka tablekaaga sida ugu qurux badan uu noqonaya markaa isticmaashid distribute row and column qoraalkan centerka ka dhigan kartaa okay waxaan u xigaa alignment waan aragnay formula ayaa ku xiga formula aan isticmaalno tusaalahan xisaab halkan qornayna 34 and 65 and 56 xisaabtan rabnaa isku darno leeyahay tegina kadib waxaan teginaa formula marka ugu fudud halkan wuxuu noo saaray equal sum above tirada kor jirto isku dar uu leeyahay okay aan leeyahay oo isku daraa tirada kor jirto oo isku daraa waxay noqotay 155 okay haddii aan u baahdo in resultada kor la iigeeyo ka waran formula ayaan ku laabanayaa kadib halkan hadda waxba kuma qorno way banaan tahay kadib waxaan qorayaa sum shift 9 open bracket way bracket ayaan furayaa kadib below ayaan leeyahay below kadib waan xirayaa oo shift iyo 0 ayaan ku xirayaa marka sum below maxaa ula jeedaa tiradan hoos ku dar oo natiijada kor iigeey okay aan leeyahay marka natiijada kor la iigeynaa 310 ay noqoto inta marka la soo daray okay haddii tira kale halkan aan ku qoro oo dhanka midig aan ku qoro kadib result halkan aan u rabo formula waan tagayaa kadib waxaan qorayaa doonaa sum square tirada shift 9 right aan leeyahay tirada midig jirto square aan leeyahay shift 0 kadib enter aan leeyahay ama okay waa ka wala square wax la square 45 iyo 65 haddii resultada aan ka rabo hor halka inay imaato dhanka midig formula aan leeyahay sidaa fiir wuxuu ku dhahayaa oo ku sheegayaa ma waxaan isku hadaraa ku dhahay tirada oo bidix jirto high aan leeyahay okay aan leeyahay marka waa ka wala square marka intaas qaybood afarta qaybood ayaa formulahana loo isticmaalaa cashirkan halkaas ayuu inoo joogayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii nagu cusub tahay noo soo biir aad iyo aad u mahadsantihiin